boqolkiiba boqol. aan bilaabo qaybta mathematicalka ayaan jeclahay. waxaa laga yaabaa dadka qaar inay yidhahdaan mathematical ka daa qur-aanka wax noocaas ahaa. waxaan leeyahay saaxiib laga daymaayo qur-aanku mathematical lagu yaraa kutusaa maanta haddii ilaahay yidhaahdo. anoo waxaan jeclahay tusoo taabsii marka ku taabsiina haddii ilaahay yidhahdo waan kutusaa biidnillahi alkariim. waxaad arki doontaa in dad fara badan oo aqoon-yahano sheegta ama culummo sheegta aysan aqoon durugsan u lahayn kitaabka ilaahay. waxaa la xisaabaa oo bani aadamku ay qaataan horta aan xuso ma reebana macnaha inaba allah ka dhigay daliil cadaa saaran. suura jin aayadda ugu dambaysa rabbi wuxuu leeyahay wa axsaa kulla shayin cadada. shay walba ilaahay cadaad ayuu ku koobay subxaanahu jala wacalaa. marka qur-aanku waa shay weeyaan, cadaadkaasuuna soo gelayaa. cadaadkuna waxa weeyaan nambaro weeyaan, waa xisaab weeyaan. marka aan bilaabo haddii ilaahay yara aan ku dheeraynayne. bani aadamka hadda jira wuxuu isticmaalaa waxa la yidhaahdo 24/7 24 saac 7 maalmood. macnaheedu waxa weeye dukaankan wuxuu furaanayaa 24 saac 7 maalmoodba haddii lagu yidhaahdo macnaha weligiis ma la xirayo weeyaan. dhegeysti ama saaxiibayaal, qur-aanka waxay ku jirtaa nambarka 7 24 meelood ayuu uga soo laalaabatay. qof walba oo awood u leh inuu raadiyana uu raadi karaa. xaqiiq weeyaan bay kama dhibcaana. taas anaa bil ramadaan idiin sheegaya, xaqiiq weeyaan. 7 nambarka 7 oo weliba si cajiiba ugu jira bilowga qur-aanka. markaad soo bilowdo suura faatixa ilaa maa nambar 7 aad timaad, nambarka ugu horeeya qur-aanka ood ku arkaysa waa nambar 7 weeyaan. markaad timaado 35 aayadood markaad soo akhrido ilaa faatixu ayaad nambar 7 arkaysaa. 35 waxay u qaybsamaysaa 7 sida macruufka waa nambar 7 asalkeeda xisaabtaas. markaad soo socoto meesha ugu dambayso nambar 7 aad ku arkayso 24aad waxay ku jirtaa suura Amma. waxaan jeclahay ayadda 12 inay tahan jeclahay. waxaa ka dambaysa 30, waxaan leeyahay 28 aayadooda ka dambaysa oo dhinaca dhamaadka ka xigta. ayaduna waa 4 lagu dhuftay 7 exactly. marka sidaas uu cajiib u yahay oo nambar 7 qur-aanka ugu jirtaa wax la yaab leh ah. waa 24/7 weeyaan. soo soco waxaad timaadaa maalinta imaad. maalinta yowm alyowm. yowmeyn lama rabo, yowma idin lama rabo, yowma hum lama rabo, yowma kum lama rabo. yowm alyowm keliya markaad qaadato 365 meelood ayay qur-aanka uga jirtaa. maxay ka walax tahay macnaha? qoraxdu waxay dhulka ku wareegtaa sanadkiiba 365 jeer iyo wax yaroo saacad iyo waxay taala mooyaan wax yar oo siyaadaha la socda. exactly sidii qur-aanku u cabirayaa. soo laalaabashada qur-aanka cilmi weyna ku jira. soo soco dayaxa imaad. ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay ina ciddata shuhuuri cinda allahi 12 shahra fi kitaab illah. suura bara ayad ku jirta. 12 bilood weeyaan sanadku ilaahay agtiisa. saaxiibayaal, xaqiiqda haddaan idiin sheego maanta qur-aanka wuxuu isticmaalaa shuhuur, ashhur, shahrayn iyo shahran keliya. shahr markaad qaadato keligeeda fardiya 12 meelood ay qur-aanka uga jirtaa. soo wax la yaab la maaha, soo xisaab maaha bilaahi caleyk. soo soco haga gudbina dayaxa. qamar ayuu qur-aanku yidhaahdaa. qamar qur-aanka dhexdiisa waxay kusoo laalaabatay 27 jeer ayay kusoo laalaabatay. oo maxay tahay xikmadda ku jirtaa? dayaxu dhulka aan ku noolnahay oo adduunyada arlada 27 jeer ayuu bishiiba kusoo wareegaa hal mar. 27 god ayuu leeyahay dayaxu. 2 maalmoodna way maqan tahay. 29 maalmood weeyaan bishu qamarku macnaha. exactly tiyaa ku jirta 27 mar ayay kusoo laalaabatay. kaanama saacadii oo kaleeta godadkii oo kaleeta wax la yaab la soo maraa. marka walaalaha sharafta laho waxaad ogaataan kitaabka ilaahay inuu yahay mucjiso dhaaftay. haddaad xisaab aado, haddaad maxayaato cilmi saynis aado, haddaad taariikh aado, haddaad luuqad aado, meel walba aad aado, cirka dhulka meeshaad aado waa kaa soo haraya. waxa aan tiri karana maaha. waxaa kaloo la sii la yaab leh oo macnaha meesha kusii jirta iyaduna oon macnaha ma koobi karo runtii. laakiin waxaan jeclaa inaan hal mid idinkugu daro. waxaan ognahay arladan aan ku noolnahay bartankeeda kala barkeeda waxaa ku jira lakabyada ugu culus ee birta ku jira. ironka la yidhaahdo, birta xadiidka. suuradda qur-aanka kala bartamaha qur-aanka waa suuradda 57 ee qur-aanka. suura xadiida la yidhaahdaa. magaca xadiid haddaad bedesho abjadka carabiga aad u bedesho xisaab aad u bedesho waxay imaanaysaa 26 nambar ah.
26 kaas ma taqaaniin waa atom numberka ay wadato suura xadiid atom numberkeeda ciddii taqaana dadka yaqaana atomyada waxba noocaasa ayonka iyo exactly 26 ayay wadataa waxaa loo yaqaano period tableka mar kaleeto waa mucjiso lagu daray bartankii qur-aanka ku jirta maxay ahayd ii sheeg subxaan allahi alcadiim magacii xadiidka ku jira xadiidka isaga naftarkiisu bani aadamka sameynaya ayonka iyo waxyaaba noocaasa maysan aqoonin laakiin waa iska sameeyeen laakiin exactly weeyaan xaqiiq weeyaan waxaan kasoo sheekay karaa maaha tiraday ka bateen haddaan is ka sheekay maanta caawana waa wadi karaa iyo berri iyo saadan baa wadi karaa laakiin mar rabana casharkooda ku dheeraado intaas ayaan jeclaa inaan ku sharfo bisha ramadaan habeen dambe wixii ka dambeeya na haddii ilaahay yiraahdo diyaar garowna bisha ramadaan weliba 21 bisha ayaan anigu sheegaya haddii ilaahay yiraahdo caddayna waan u hayaa waa soo bandhigi doonaa insha allah wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu